السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوكتان يسكا صعدو طاولسان حلو نفسي وهي موضوع وحكو سابسي على قضب وحاوي شركي مدشة سبت بحنت الصوماليا يو مدحوينها الدولة الفدرالكا حسن شيخ محمود أيا ديبوغا فرمي مانتا oo ah 3 July magaalada Muqdisho shirkaas waxaan idin haynaa qodobada ay wadato madashu oo weliba u badan qodobo support gareynaya ama ka yimid dhanka dawlad goboleedka Jubbaland waayahay iyaguna dabcan qodobo kale ayay wataan qodobka kale waxa weeye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa yiri hadii Muqdisho dadka laga xigsado oo loo sheegto ummadda Soomaaliyeed markaa inay caasimad raadsato bay xaq u leedahay waxa weeye qodobkaasna si cadaalad ayaan u dul istaagi doonaa labaas qodob ayuu mowduucu ku saabsan yahay adin kale waxaan idin ka codsanaynaa insha Allah taala in aad saaxiibadiin muuqaalka la wadaagtaan aansa ku furo bal heestan daqiiqadaha sikinada ila daawada سسبليسو كلامادي سيراد ليسو ودا شيداي كسي غردهايا ليس ودا سبايا سالانا يا هين كما ليس سارا ليس سو دويا رنتا لغا سقايا waxay ila tahay heestaas nuxurkeeda inaad fahamteen miraha iyo muuqaalka aan soo saaray marka aad isku darta waayahay aynu ku bilowno shirka ka furmay magaalada Muqdisho kaas oo horay loogu ballansanaa magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir u dhaxeeya madasha sabata bixinta Soomaaliya loona soo gaabiyo MSS iyo dawladda federaalka Soomaaliya ama madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud shirkan maanta furmay ajandihiisa inta aanan u gelin wax yar aan dib idin celiyo kulankii ka horreeyay oo adeegeen in afar qodob laga soo saaray waxa jiray qodob kale oo isagana la isu sheegay laakiin warqadda aan lagu qorin qodobkaasi wuxuu ahaa nimanka la yiraahdo MSS waxay Xasan Sheekh Maxamuud hor dhigeen in Soomaali aysan horay u socon karin wada hadalladooduna aysan waxba tarayn haddii aan la keenin Jubbaland iyo Puntland oo qayb weyn oo dalka ka maqan ah xilliga madaxweyne Xasan Sheekh bisaraaxa runtii si aan gambasho lahayn oo munaafaqado aysan ku jirin buu u yiri sida inuu xogta ku helan tiimka dhexdiisa yani xogta ka helnay ma keeni karo Jubbaland iyo Puntland taas wuxuu yiri idinku been sheegi maayo weliba waxaan idinka codsanayaa wili adinku inaad keento qodobkaas wuxuu ku jiray kulankii ka horreeyay kan maanta dhacay saas markuu yiri nimankii madasha waxay yiraahdeen dib nuguma ahan oo anagu waan isu furanahay Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Saciid Deni iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam laakiin maxaan ku keenaa wuxuu yiri wax kasta oo xal lagu gaarayo ayaan ogolahay bal hadda ergeeya nimankii la soo hadla markaana aynu isu nimaado oo ajandahooda la kaalay sidaynu xogta ku helay xiriir bay la sameeyeen madashu gaar ahaan Xasan Cali Khayre iyo ninka la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed oo labada nin oo sida gaarka u wakiisha ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam afar qodob ayuu soo dhiibay Saciid Cabdullaahi Denina waxa weeye war anigu wax gooniya ma rabo xasan waxaan ka rabay waxaan kala heshiinay ma jirtay dastuurka umadaanu lahayd ha ku soo laabto si doorashada aynu u heshiino sababtoo ah waan musharaxa oo doonaya xasan meesha inuu ka bedelo wuxuu yiri anigu waxaan idin diibayo waxa weeye inta adigu ka aaminsantiin baan aaminsanahay ninkaas waxa weeye umadu waxay heshiiska ku hayto ku soo laabto Axmedow hal qodob oo laga sugayay ama laga filanayay wuu iska daayo uma baahniyo yiri afarna wuu soo dhiibay afartaas qodob waxay kala tahay wuxuu yiri kow warqadii waranka ahayd ee kooxda Xasan ii jartay inkastoo ay qaban waayeen haddana waxaan rabaa inay si cad u sheegaan inay ka laabteen waa kow qodobka labaad waxa weeye cunaqabataynta duulimaadyada ee la saaray shacabka Jubbaland degdeg in loo qaado saddex wuxuu yiri support budgetkiina la ka jaray ee Jubbaland xaqa u lahayd oo in la soo daayaa afar Muqdisho haddii aan tagayo
وإن للضمانات قادا أمنيكيغا طبعا عيدا وإساقو ليه وقارا ويران كونتون أسكري وسوق حيسان دونا لكن وعوية تاغو دا إنو سندعين ضمانات وين لقليا أما لا إنشورنس قرايا أمنيكيغا أفرتاس قلب أيو مدحويني أحمد محمد إسلام وديبي شريف شيخ أحمد يحسن على غيره أفرتاس قلب لمانت وحال الله ربيقيا حسن شيخ محمود muuqaalka aan saaray muxuu ahaa heesta waxaan ula jeedaa hadda meesha wanaag baa ka muuqda oo odaga sidaas hore laga soo sheegayo uu leeyahay wax kasta waan ogolahay oo inookaas ku imaanayaan sidaas waa qurux muuqaalkuna hadda ma xumo oo waa la soo dhawal cadeynaya laakiin weli anagu xasan kuma kalsoonin oo waxaan isleenahay waa munaafaqadiisii iyo ila meereysadiisii oo weli sii socota لكن وقربع يوانيك شفكا نجاحية أفرتاس قلب أحمد محمد الإسلام يا وطا يجونا وحوي دي قلب بدي كلو أول هو ماشى كوقرة كل قلب كان لفت الكيسو ماشى وكجرا من نمط مضى إن لقوة الشقية يوم حوي تلا دجال لك بحيث يوحي أهيت إن لويشيو إن لقوة حضر الدستور كله بدري إياه دورشة توصح لكن لا اسكو رأسين ذلك لا waxaa qodobadoodu way wataan afartaas qodobna Axmed Maxamed Islaam soo gudbiyay dabcan warar kale waxay sheegayaan odaga xasana in cadaadis aad u weyn uu ka saaray dhanka beesha caalamka oo la yiri nimankaas keen ama anaga keenayna marka aniga waxay ila tahay duu aqli leeyahay odagu isagu inuu keeno ayuu qaadanaya sababtoo saara u sharaf badan in xasan cali qayre iyo shariif sheekh axmed ay dhex galaan labadaas odayo iyagoo Soomaaliyeed ayna keena waliba waxaan leeyahay waa tolnimo oo waa booski iyaga looga baahnaa ma tage walaalkiisa oo luqluqaanay ilaahay حسن وخلدمي وإنت عديي نمان كاسو مركا ويساف قرأي كرا وغيران وحاوي وجهي وبدبادين كرا ويحكا صوب حتى صوار كلا مدعوين الدني كلمة داس ويري أين أسدول تاقو هرطا أنا وحالا غير مقدشو كل شيء مقدشو ورد شيء مقدشو كوا ثلاثين صوبة إيضا إيساس تاي واركا مدحوين سعيد عبد الله الدني بقول كيوا بقول بان لي هاي صحوي صوت الحيط ويلك هوية أما قبل هوية حالكا نقا داوني صوالي كاي noo fadhiisto kuwaasaan la garabaya wiilka hawiye iyo gabadha hawiyalkan iga dawanaya waxaan leeyahay hal mar ka bax hawiye oo waxaad noqotaa daarood dir ama digir iyo marifle isla markaana niyeyso iyadoo caasimada ummadda Soomaaliya ay tahay Baydhab Hargeysa ama Garowe waxaad sii niyeysataa adigoo Garowe dhex taagan Baydhab dhex taagan ama Hargeysa dhex taagan oo lagu yiri meeshan annagaa leh aduguna martibaad ku tahay dhanka kalena laga leeyahay waa caasimada ummadda Soomaaliya anigoo og inaad goysiga nacabta anigoo og in maxawaati xoogweynta aad nacabtahay haddaad tahay shakhsi hawiye ah waxaan hubaa durbadii baan tawmiidaya soo fadhiistaan dheeleeday caasimadu waa qoonsani waana meel qabiil leeyahay waa meel aan maxawaati u qalmin caasimada ummadda Soomaaliyeed ummaduna waa inay caasimadeeda ka fikirtaa meel kale meeshaas dad gudaha degan dheelay oo gob ah waa gabadhii wiilka hawiye hadday daawanay waxa weeye markuu dadku adigay kula mid yihiin waxaa dareemi lahayd buu dareemayaa qofka muxuu ahaatay gobol kala degan caasimadaasna muxuu ahaatay kula leh ee aad maanta ama powerkii dowladda aad u sheeganayso ama muxuu ahaatay aflagaada kale aad hawada u marsiinayso ama si uun waxa weeye qof lagu khasbayaha aad isaga dhigaysid waxa weeye laguguma khasbana muqdisho inay caasimad noqotana wax hawiye uu doortay ma kaliya isagu ma sameyn go'aan ummadda Soomaaliyeed ka soo baxay buu ahaa ummada hore oo dadka ka nool dabcan iska yar yahay maanta amaba uusan jirin ayaa dastuuri ka dhigay oo ku heshiiyay 1960 inay noqoto caasimada ummadda Soomaaliyeed waxa weeye marka awalba waxay ahayd fikrad ka timid ummadda Soomaaliyeed waxaana loo baahan yahay dadka in la dareensiyo lahaansho oo magaalada Muqdisho dadka aan lagu khashashaadin hadday powerka dowladda tahay aan power abuse dadka lagu sameeynin oo xamaran u fadhiya wuxuu sameey karaa male maamul goboleedkan caqabateen baan ku qaban inta saanan yeel xamaran jooga hawiye aan hay cid xaga qaadaya male qaaqlan la soo geliyo media odax ma xarfad le balaayo dhab ay maanan ay la taagnaadaan waxa weeye caasimadnimada ayay magaaladu ku waayeysaa waxaan leenahay anigoo marka la daliishanay kelmadeydii hore ee ahayd mantage walaalkiisa u luqluqa waxaan leeyahay nimanka hawiye ee dadka nacsiinaya caasimadda waxaan leeyahay ka daayay
waxaasu nooma roona haddaad tahay xasan sheekh haddaad tahay kuwa doqomadaha daba jooga waxaa weeye magaalada muqdisho dadku waa inay u sinaadaan si ay u ahaato caasimadii ummadda haddii aad taas diidaan ood saan ku sii waddaan oo aad annagana taladeena diidaan dee markaa waxay noqonaysaa soomaali baa naga badanay soomaalidu inay tashato oo markaasi meel ay ku uur fiyowdahay ama lahaansho ay ku dareemayso ay uga guurto caasimadda ummadda soomaaliyeed mar kasta waxaan jeclahay muqdisho inay ahaato caasimadda ummadda laakiin haddii ummadda soomaaliyeed lagu khashkhashaado kuwa khashkhashaada wada ee annaga nala dhashay ay diidaan inay taas ka tanaasulaan sharci waxaan u leeyahay oon xaq u leeyahay oo cadaalad ah ilaahay wuxuu wa aqsidu in allah yuhibbul muqsidiin in kuwa dulmiga sheeganay aanu heliyo ilaahdo waa dhamaatay walaalkii waa qabsiin waayay Soomaaliya tashato oo iyada codka aynu siina markaa caasimadana meesha ummaddu ku heshiisay aad marka waxaan ku celinayaa wariyada gudnimada hala joojiyo haddaad madaxweyne tahay iyo haddaad wax ka hooseeyo tahaba magaaladaas dadku waa inay lahaansho ku dareemaan barnaamijkii intaasaan kusoo koobaya هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته